ayaa halkan ka soo dhaweynay anigu ka soo horeeyay waxa halkan la isugu yimina waxa weeye hay'ado badan baa murugsan oo dalka ka murugsan dhinac kasta ahaatay dhinaca federaalka waxba ka murugsan xusuusan aqalada iyo dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe Puntland dhexdeeda laftigeeda waxba ka murugsan waqtigan marka wuxuu ka wakiil yahay aqalkii sare ee dawladda Soomaaliya baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan wuxuu laga doortay waqtiga halka socda dad xubnihiisan maamulka Puntland baa laga doortay iyaguna gaar ahaan u xisaaban yahay inay danahooda iyo wixii markaas ku aadan ay kala hadlaan oo ay kala tashadaan waxaana la isugu yimid tashi wixii problem oo jira ama ha ahaado heer qaran ama ha ahaado heer dawladda xubinta ka ah dawladda federaalka in laga hadlo iyo xiriiradii jiray oo kala go'ay in laga hadlo oo la iska wareysto oo markaas hadhow loo warceliyo aqalka sare intii xagga joogtay in loo warceliyo haddii ilaahay waxaad ogtihiin oo ka warhaysaan inuu jiray khilaaf dawladaha xubinta ka ah dawladda federaalka iyo dawladda dhexe September 2018 kaasoo kala go gaaray welina aan dib la isku soo noqon sidii la rabay inkastoo la wada hadlo ay kala go'een maamuladii iyo dawladda dhexe arrintaas aqalka sare ayaa u qumay hawl adag buu ka qabtay wufuud buu kala diray maamuladii xogti baa la soo ururshay waa la isu keenay xamar baa la isugu tegay aqalka sare guddi gaar u saaray guddiga gaarka ah dawladda la xiriireen muddo adigu markii la wada hadlaayay oo meelo badan la taabtay waxaa la isla gartay in aqalka sare go'aankii uu soo saaro iyo xubno ka mid ah dawladda dhexe oo wasiir ah oo wakiil ka ahaa waxay isla garteen aqalka soo saaray in lagu xalliyo mashaakil jiray mashaakilkaas waad ogtihiin waa ugu dawli taagan waxa ugu horeeya koow waxa ah dastuurkii la isla raacay oo federaalka ahaa oo qabyada ahaa wadadoo ku socdo maaha wada sax waa qaldan yahay wax ka hagaagana ma jiraan afartii sano oo dawladda federaalka madaxweynaheeda iyo baarlamaanadeeda la doortayna waxa ka haray muddo 2 sano ka yar hal sano iyo 8 bilood baan maleeyay waa ka haray wax dastuur maanta jiraan ma jiraan wixii ay soo diyaariyeen la isku raaci waxa yeelay dadkii ka shaqeyn lahaa dastuurka iyaga ayaan qaabkood maqan yahay waxa maqan xubnihii maamulada ka socon lahaa oo guddiga farsamada ku jiri lahaa ayaa maqan oo waxa ay soo taagay dawladda dhexe ay soo taagtay ilaa hadda laba kuma jiraan waxa kaliya oo shaqadii gacanta ku hayay waxay ahaayeen 5 xubnood dawladda dhexe ay soo saartay kuwii dalka maslaayay rasmi ahaantiisa danihii state-ka maslaayay wali ma shaqeeyaan kuma jiraan barlamaankii marka labada xubnood maslaayay xubnihii maslaayay barlamaanka jira laakiin kuwii farsamada oo state-ka amray waxyaalihii ilaahay ma ka soo shaqeeyay in islaaf kana waa markii aqalka sare keenay taas qodobkaas ugu horeeyay wixii la soo saaray waxa ku xigay amniga dalka sidii loo sugi lahaa isagana waa intii meeshu marayo dhibaato badan baa ka jira ayaa ka hadlay waxa ka mid ah iyagana maamulada markii doorashooyinka ay ka jiraan inaan la faragelinna hadee meediyadu waa ka waraysaa bay la tahay intii meelooda wax ka dhaceen oo la doortay ka dhaceen oo ilaa haddeer waxa weeye waxay wax ka dhaceen koonfur galbeed faragelintii ka dhacday waad ogtihiin fidmada ay keentay iyo dhibaatada ka dhacday dadka ku dhintay iyo dadka xirxiran intaba waa ka waraysaa Puntland oo ballan gaar ah ay ka jirtay dawladda halkan markii aan la imaanayay oo anigu waan ka mid ah dadkii halka yimi oo oversight ka ahaa meeshaan in doorashadu si xaq u dhacdo gacan gelin xoog leh waa ka dhacday oo dawladda dhexe ay lacag badan ku bixinaysay oo aad ogtihiin 20 xubnood oo tartamayay anuu ma garan karo inta aan wax la siin laakiin waxaan isleeyahay badidooda lacag baa la soo weysay in la carqaladeeyo inay ka soo bixin doorasho xaq ah oo xalaal inay ka soo bixin laakiin nasiib wanaag dadka halkan degan way ka guuleysteen ciday rabeen iyagu doortay soo baxay waxa hadda taagan arintii Jubbaland waa ogtiin iyadana oo heshiis la soo galeen dawladdu ay la soo gashay xukuumaddu la soo gashay prime minister ku tagay Nairobi wafdi loo diro dowladda xagga socda ay tageen heshiis la soo galay markii xamar la isugu yimi annagu waftiga daraf ahayn pressure group oo in wixii lagu soo heshiiyay inay hagaagaan oo dhameystiraan
wax ka hirgalay oo micno leh ma jiraan faragelinta si loo u socotaa dad badan baa jira xamar lagu musbuufo tartamaya dad badan baa jira carqalad xagga ka wada in doorasho xalaal inay ka dhacdo carqalad bay dowladda dhexe ka wadaa taas international community-gana waa ogtahay annaguna waa ognahay shacbi weynona wayna ogaadaa haddayan ka warhayn marka waddanku meel fiican kuma socdo wadatashi baan u nimi